نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكان هاو قد هصدي في مرنا إلهي طاعة دي سيد دقري سما دينين ملك نبي رسولا والله اختباري تضبطي هبلوضو لها مركلي لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي اسكا صبري تضبطي ويلو لها مركلي اسرائيل اسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركلي لغا قاداي اسكا صبري markaas jidhkiisa waliba xanuun lagu riday iska sabray xanuun nuuceeya gaadhay waxa la jidhkii intuu dhamaaday hariga iyo lafaha isku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadka u shaqeyn jirtay aqalada ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa marka u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisu inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أردا واقي وربي جيبه لما ناجوده أقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى يسوع قالوا إتابته هذا كنا كون نحرس لك وكنا حرس بدل ما ته إله نبقى يقعد بويري إلهي مركبه الدعاء يسوع كأقبله بالليل هل كي وجوجي بالقول اللقطة تروح كودفو اركض برجلك سديد يتبصر ننجي فيو حنوسنا أود جركيس كل جرتا يقول كمركو حراتي بيو وكذا كاني كرا وأودي يعني هذا هو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها صو صارينه لقطة هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم الروح ذا يكون حجرته أيا أسبابتن الدنيا قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة بركان نظام كإلهي إيش إنه ما قبنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلك تبو النبي أيوب سعود قاجي للكو كعلي لبض اللي قد دحدو ذي بيه كصوبحين بالليل لبا إلو ذبيا إلنا وحال يريو كم ما يرو إلنا وحال يقول يا عم وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء جودها وحيد حنون كجرو دم بناك وكصوبحين وصوك عبي مركلية xaaskiisii magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaayo oo aan u shaqo tagay miyaa dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay
markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii ninee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariiddiiyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayri fahum yuusacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabassama daaxikan min qowliha boqortooyaday ilaa halkaa gaadhsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiye war boqor nuucaay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay fii kulli zamana farduhu waa shay qaaliya fardihiisii ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacada waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaanno ilaahay la munaajoonno saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xubba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا قرآن كو شيء فرده با الهرمري وحوري فردها هذه هرمرسان وعي إيقام مشغوليا إلهي حسكي بيقام مشغوليا بيولي ذكري أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع علي يقول يسوع علي كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغولين النبيات وقورتك قوينيين إنك صلاة دان تكنيني إما سجار با الدكانة دين إنك مشغولين الدكانة دين ولي ما بحنا من كيبا أبحيو أورانكار الدكان كاسمر اللي مركان صلاة دا قلان كسهويا إلهي ترتيبا أبحيو مجرى ما دعي كرتا فرضه سيو كحرقون جري weliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqi ilaahayna wuu ku gutay xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka quraanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka hadda dabaqad kasto muslimiinta kamida aad ku lug leedahay saadiinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaana tahayna nebi ayuuba u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin